injiilka sida luukos u qoray cutubka 10 waxaa dabadeed rabbigu wuxuu soo bixiyey 70 kale oo laba ayuu hortiisa u diray ilaa magaalo walba iyo meel walba oo uu tegi lahaa wuxuuna ku yidhi waxa beerta laga goynayaa way badan yihiin shaqaaluhuse waa yar yihiin sidaa darteed sayidka beergoyska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro socda oo ogaada waxaan idin dirayaa sida baraar oo yey ku dhex jira ha qaadanina kiish ama qandi ama kabo ninnaba jidka ha ku nabdaadinina guri alla gurigaad gashaan horta waxaad ku tidhaahdaan gurigan nabadi ha u ahaato ina nabadeed hadduu halkaas joogo nabaddiinnu waxay ahaan doontaa dushiisa haddii kalese way idinku soo noqon doontaa gurigaas qudhiisa jooga idinkoo cunaya oo cabbaya waxay haystaan waayo shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa guriba guri ha u dhaafinina magaalo allo magaaladaad gashaan oo laydinka soo dhoweeyo waxa laydinsoo hordhigo cuna bogsiiya kuwa buka oo halkaas jooga oo dhaha boqortooyada ilaah waa idinku soo dhowdahay laakiin magaalo alla magaaladaad gashaan oo aan laydinka soo dhoweyn u soo baxa jidadkeeda oo dhaha xataa siigada magaaladiinna ee cagahayaga soo raacday waannu idinku tirtiraynaa laakiin kan ogaada boqortooyada ilaah waa dhowdahay waxaan idinku leeyahay maalintaas Sodom ayaa ka xisaab fududaan doonta magaaladaas waa kuu hoog Horasinai waa kuu hoog Beit Saydai waayo shuquladii xoogga lahaa ee laydinku dhex sameeyey haddii Turos iyo Sidon lagu samayn lahaa goor horay toobad keeni lahaayeen iyagoo dhar jooniyada gashan oo dambas ku fadhiya laakiin maalinta xisaabta Turos iyo Sidon waa idinka xisaab fududaan doonaan adiguna Kafarnaumay samada ma lagu sarraysiin doonaa waxaa lagu dejin doonaa Haades kan idin maqlaa waa i maqlaa kan idin diidaana waa i diidaa kan i diidaana wuxuu diidaa kii isoo diray 70 farxad ayay la soo noqdeen iyagoo leh sayidow xataa jinniyadu magacaaga ayay nooga dambeeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan arkay shaydaankoo sida hilaac samada uga soo dhacaya bal ogaada waxaan idin siiyey amar aad kula tumataan abeesooyin iyo dabqaloocyo iyo xoogga oo dhan ee cadowga innaba waxba idinma yeeli doono laakiin tan ha ku farxina in jinniyadu ay idinka dambeeyaan laakiin ku farxa in magacyadiinnu ay jannada ku qoran yihiin saacaddaas qudheeda ayuu ruuxa quduuska ku reereeyey oo yidhi waan kugu mahadnaqayaa Aabbow Rabbiga samada iyo dhulkow waayo waxyaalahan ayaad kuwa caqliga iyo garashada leh ka qarisay oo waxaad u muujisay ilmo yaryar haa Aabbow waayo sidaas ayaa kaa farxisay aabbahay wax walba waa ii dhiibay oo nina wiilka garan maayo cid uu yahay aabbaha mooye oo nina aabbaha garan maayo cid uu yahay wiilka maahe iyo kii wiilku doonayo inuu muujiyo wuxuuna u jeestay xertiisa oo keli ahaan ugu yidhi waxaa barakadaysan indhaha arka waxaad aragtaan waayo waxaan idinku leeyahay nebiyo iyo boqorro badan ayaa doonay inay arkaan waxaad aragtaan mana arkin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana ay maqlin mid sharciga yaqaan ayaa istaagay oo jirrabay isagoo leh macallimow maxaan sameeyaa si aan u dhaxlo nolosha weligeeda wuxuu ku yidhi maxaa sharciga ku qoran sidee baad u akhridaa isagaa u jawaabay oo ku yidhi waa inaad rabbiga ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan iyo caqligaaga oo dhan deriskaagana waa inaad u jeclaataa sida naftaada wuxuu ku yidhi si hagaagsan ayaad u jawaabtay sidaa yeel oo waad noolaan doontaa laakiin isagoo doonaya inuu iscaddeeyo inuu xaq yahay ayuu ciise ku yidhi yaa deriskayga ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi nin baa Yeruusaalem ka soo degay oo Yerixo ku socday wuxuuna ku dhex dhacay tuugag oo intay dharka ka furteen oo garaaceen ayay ka tageen oo daayeen isagoo beskiisa waxay noqotay in wadaad jidkaas ku soo degayey oo markuu arkay ayuu dhinaca kale maray sidaas oo kalena nin reer Laawi ah goortuu meeshaas yimid
oo arkay ayuu dhinaca kale maray laakiin nin reer samaariya intuu socday ayuu meeshiisa yimid oo markuu arkay ayuu u naxariistay wuuna u dhowaaday oo nabarihiisii ka duuduubay oo saliid iyo khamri ku shubay markaasuu saaray neefkiisii oo hudheel geeyey waana u dadaalay maalintii dambe wuxuu soo bixiyey 2 diinaar oo siiyey ninkii hudheelka lahaa oo ku yidhi u dadaal oo wixii dambe oo kaaga baxa soo noqodkayga ayaan kuu celin doonaa 3daas keebay kula tahay inuu deris u ahaa kii tuugaga ku dhexdhacay wuxuu ku yidhi kii u naxariistay markaasaa ciise ku yidhi tag oo sidaas oo kale yeel oo intay socdeen wuxuu galay tuulo markaasaa qof dumar ah oo maarta la odhan jiray ayaa gurigeeda gelisay waxayna lahayd walaal maryan la odhan jiray oo iyaduna waxay ag fadhiisatay cagihii sayidka oo hadalkiisa maqashay laakiin maarta waxaa jiidanaysay hawl badan oo intay u timid ayay ku tidhi sayidow miyaanay waxba kula ahayn in walaashay iddaysay inaan keligay adeego haddaba la hadal inay ila qabato laakiin sayidku wuu jawaabay oo ku yidhi maarta maartay wax badan ayaad ka welwelaysaa oo isku dhibaysaa laakiin mid baa loo baahan yahay maryanna waxay dooratay intii roonayd oo aan laga qaadi doonin